magaalo fac weyn oo aan helin mudnaanta lahayd magaalo aan helin kaabayaasha horumarineed falfal magaalo aan helin xaqeedii magaalo ay siyaasiin been u sheegeen iyo ballanqaadyo aan fulin waxaan tagay magaalo aan lahayn khadka telefoonka waxaan tagay magaalo aan lahayn xarumo caafimaad waxaan tagay magaalo aan lahayn iskoolo tayaysan waxaan tagay magaalada falfal aniguna waxaan ahay Muxuudiin Xarago falfal waxay dhacdaa waqooyi bari marka la joogo magaalada Dhagaxbuur ee xarunta gobolka Jarar waxayna u jirtaa waxaan ka badnay 20 kiiloomitir waxay ahaan jirtay xarunta la socdaan walise baadi goobaysa dhabahay u qaadaleed horumarkeeda waxaan tagay mawlac lagu carbiyo caruurta daayirka waxaan tagay madrasada Sayid Cumar oo aasaasan qurba joog u dhalatay tuuladan 2021 ayaa la yeegleelay madrasada Sayid Cumar Sheekh Maxamuud waxa uu kamid ah asaasayaashii halkan lagu ogo diinta isaga qurba joog ku nool daafaha dunida waxayna lahaayeen fikradda lagu abaqaalo wada loo qaado barashada quraanka ee biyo arkaanta diinta islaamka Sheekh Maxamuud waxa uu ka warbixinayaa geedi socodka madrasada aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta inaynu masaajidka qurux badan aynu furanayno ku ducaysanayno niyad wanaagsan culimadeeni iyo caamadeeni iyo shacabkeena dhammaan baa aynu meeshan ku dhannahay kulli waxa inaga maqan gabdhihii iyo maamooyinkii caruurta dhalay iyo kuwii reer falfaleedka ahaa ayuun baa inaga maqan oo runtii u baahan in masaajidka qayb loo gooyo oo mar alla markii xafladan qabanayna iyo markaynu kulmaynaba ay ciyaalkooda waxay aqrinayaan ay daawadaan marka gabdhahana insha Allah taala iyo haweenadii xaafmeel deganaa falfal iyaga laftooda inaan qayb ka soo gelino ay noo yimaadaan oo arkaan bal meeshan wax ka socda sheeko un bay ku tahay waa muhiim marka iyaga in loo hagaajiyo ayaa in bidina kariim ila quman insha Allah taala hadalka waxaan ku soo koobayaa oo aad ugu soo yareynayaa horta qurba joogtan hawshan kullay dabada ka riixaysa ee $20 iyo $10 iyo $50 isku soo dardaraysa Allah barakeeyo markasta inaan u duceynana waa inuu waajib qurba joog lamida qurba joogta reerka u malayn maayo inay ka jirto kililka u malayn maayo waxaasina waxa weeyaan ikhlaas bay la yimaadeen iyo isku tashi iyo wax isku dardar bay la yimaadeen marka wiil iyo gabadhba hiil iyo hoob ay nala taaban yihiin inagala garab taagan yihiin dadku wax badan ma hadhahan warna nimanku xageey way wax ka keenan laakiin telefoonkaagaas ku jirta ruux kasta oo wax bixiyay magaciisa saddexan baa qoran meesha joogay baa qoran ruux kasta hadii xataa baaritaan loo baahdo waynu tusaynaa cid u baahata ama dawladda noqoto ama cid kale ha noqoto ama ninka u baahan baa la tusayaa waxa weeyaan waa dadkeeni inaga dhoofay ee dibadaha tagay oo $25 iyo $10 iyo $50 isku soo dardaraya ayaa heerkan iyo hawshan inoo qabtay iyo dadkeeni deegaanka joogay deganaa wadanka oo iyaguna niyad fiican la yimid intaas iskaashaday qurba joogto inoo fiicnaatay oo isku soo dardartay iyo dadkeeni deegaanka joogay oo iyaguna niyad fiican la yimid ayayna hawshan maanta aan taaganahay aan ku gaarnay waxaan rajaynayaa wadartan ciyaalka sawa wax u qarnayaan waxaan rajaynayaa in ciyaalku inta ka sii bataan oo Ilaahay noo ballaariyo oo inuu biilkoodii helo waxaana da soo iibinay cagafti waa u diyaar cagaftaas waxay soo saarto ciyaalkan u baaskala waa waqfi lafteedu oo nimankan inoo iibiyeen haddaynu si fiican wax u qabsano wax inta ka badan bay inoo qabanayaan haddii arkaan ciyaal far badan oo quraankii xifdiyay oo masaajidkii buuxdaafiyay waxa laga yaabaa inay yimaadaan waan imanaynaa weynay hadday yimaadaan deyrkan iyo dhulka la weynoo hagaajinayaan wax badan bay inoo qabanayaan waa hadday inaga isku kalsoonaan hawsha saa ku wadno oo ay isku kalsoonaan laga helo way imanayaan waa markay arkaan inagu saan wax u wadno ay waliba ikhlaas ku jiro oo maanta aniga $50 ee lagu soo hagaajiyo ana nool ka dhiganin oonan maqaaxi ku gelin oonan kharash ana ka dhiganin oo iska ilaaliyo markaas Ilaahay ikhlaaskiisa subhanahu wa ta'ala Ilaahay aqbalaya meesh Ilaahay markaas aqbalaya marka waxaan ku daray mooyaane aynu wax ka qaadi weyno oo aynu maaragtay waayo de waa amaano waxaan waa agoon waa la soo dhiibay Sheekh Yuusuf Baxar waa bare xaruntan lagu barto quraanka macadkan wuxuu soo maray kolkii hore macad baloogma talagelin guryaha waxa loogu talagalay iskool ee Ilaahay baa subhanahu wa ta'ala u rogay macad in laga dhigo dugsi sare ayaa kolkii hore loo dhisay bacda fikrad kadib ay qurba joogteen waxa weeyaan fikireen waxay yiraahdeen dawladda ayaa inoo dhisayso oo inoo dhistay oo u taagan inay dhisto iskool war madaraso diinta lagu barto aynu waxayno waxay inoogu dareen oo caalamkaba ka jirin inay waxa weeye boarding ka dhigaan la seexdo oo cuntada lagu cuno taasina caalamka kama jiro hatta jigjiga boarding waxa weeye cuntada lagu cuno
oo cuntadiisu bilaash tahay oo seexadkiisu sida yahay oo wixii soo dhan loo qabo caalamka kama jiro falillahi alhamdu waa wax ilaahay loogu mahadiyo waa wax ilaahay subxaanahu wa tacaala loogu xamdiyo dadkii waxa weeye sheekh maxamuud hormuudka u yahayna ee hariya habeenba ardada uu la seexanaya tawaaduciisa ardadaas uu la seexanaya waxa weeye markuu yimaadaba wuxuu jecel yahay inuu ardada masaakiinta iskala seexdo agoonta oo la cuno waxay cunayaan bal wuxuu ka fikirayaa waxa weeye mustaqbalkooda caruurtiisa wuxuu kaga fikiray uu ka fikiraya kolba wuxuu soo gadayo waxa weeye cuntadooda noocay cuni lahaayeen say u waxayn lahaayeen buu ka fikiraya xildhibaan Najiib Rashiidna waxa uu qayb ka ah wafdi booqasho ku tagay madrasadan camalka aad la imanayso haddii aan rasuulka sallallahu alayhi wasallam aadan kaga dayan adun bal ugu soo celin marka wax kasta in la isweydiiyo waa laga maarmaan dardaaranka aan siinay waa dardaarankii Luqmaan oo wiilkiisa aan filayaa suuratu Luqmaan badalkiin inaad gaadheen wad gaadheen sama suuratu Luqmaan وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إلهي هو شريكين الشركة قد بك أنه حاستانو قال لهم ووح إلهي لها أو ضد أما مخلوقات كيس ألا وذاجس وحفر ربضان ويمكن الشركة يوجد لكن ما وقرن إنما كما برارب سنين مركا إنا أضاوح ويديسان إلهي وحويديسته وحب الآدم كوها يا وح كير وين أو إلهي الروح والرب كوسا مرني إن الشرك لظلم عظيم وحكوحي ووصينا الإنسان بوالديه قرآن كم يحب سنين هدان تشبي وذيك قبل سنة قدين صم يحب سنين قرآن هدان تشبي وذيك قبل سنة قدين إلى الحفاظ ده ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وهو يضي أنت بدل مقامها ويكسر رسابه سيد رسولك حديثك النوشة صلى الله عليه وسلم صدح شير مركي ليدي هو يدا يا مركي أفراد ليدي أبا ساسا لسو أرمري لكن وصينا الإنسان بوالديه حملت أمه وهن على وهن وفساله في عامين أن اشكر لي بان سعدان ولوالديك لبدا والد مركز إلهي حقيسة حقا كسوحي وكدقا مركا والدينتين هل كان إنكو سو حريي آبا كيرشان قرية شخصي محوها والله نستيحين والدكو وحيو تاغن هاي درجة أوصر ريسا آيات دنباي إنو شايقسا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطيعهما سيدة وحل اسكر رعيوه هناك إنما طاعته في المعروف haddii waalidku markaa wada khaldan ama waxaan saxsanayn kuula yimaado waxa uu soo haray hum saaxibuhuma fi dunya ma'ruf waalidka wanaag baad kula dhaqmi lama culoobay waalidku haddii xitaa wada khaldan uu ku marinayo wadada ma qaadaysid waxa la isku waafaqaa waalidka lagu adeecaya in waa wanaag cid kastaba waalidiintu waxay farxadda la qaybsanayaan carruurtooda baranaysa qowlka Eebe Sayid Umar kaad raadinaysan waa meel kale ha kala doonaan Sayid Umar kaad raadinaysaan waa awowgay marka annakana magac reerka oo dhan intaas magac ugu filan intaas haddii quraanka barato reerku kor buu kacay ata'allumu fi sigar kan naqsh fi al-hajar wax barashadu yaraanta waa dhagax la xardhay soo somada kuma taalo ya dhagaxa hadaad xaradho intaad gudin soo qaadataad xaradho waa sidiisa unba ugu ooli ya marka taa ku talagala hawshana Allah inoo fududeeyo quraankana Allah idin fududeeyo waxa idin la jirana waa dadaal waxaan aad meeshan ugu mahadnaqaynaa oo aad iyo aad aan ugu mahadnaqaynaa dadkan Ilaahay waafajiyay macadkan islaamiga ee aan ka jirin gobolka Jarar gobolka Faafan 12 gobol ee dawlad deegaanka aan ka jirin ee khayriga ee dad muxsiniin oo dar Ilaahay hantidooda iyo xoogooda iyo muruqooda isugu daray Ilaahay u garasiyo ayaan aad ugu maartay mahadnaqaynaa waxa weeye falfal waa meeshii waa aabihii waa xuduntii halka
aniga iyo intii lamadii fursadan maanta ay heleen wiilasha reer maana helin walxamdulillah rabbil alamin halkan hiigu ka qodan yahay aniga iyo Barrow Muuse iyo rag imika wixii ka nool Barrow Muuse Xaydiyo oo Muuse Xayd Allah naxariis halkaas quraanka nagu bilaabay geedka gobka hoostiisa looxu nagu bilaabay khadkana tawaad hal argay leeyahay idinku aydan garan sawirna ku aragtay mooyaan ku dhigan jiray waxa horta ilaahay alxamdulillah ya waxa la baranayaana waa diintii islaamka waxa la baranayaa waa wax loo baahnaayo dadkani u baahnaa dadkani wuxuu iska ahaa xoolo dhaqato lama helin fursadan oo kale dadkani muuna helin ilaa alaan hadda mooyee caruurtan mooyee intii ka horeysay fursadan oo kale ma helin annagu waxaanu diintan baranaynay socod iyo orod iyo galbeed iyo kolba meel ka cunbaan ku baranaynay dadkani wuxuu helay dadkii hore muuna helin alxamdulillah rabbil alamin ilaahay baan ku xamdiyeynaa nimcadan nasiiyay ee waqtigan nala kulmiyay waqtigan soo maray iyo maanta waqtigan halkaan dhowro waqtigii hore wuxuu ahaa waqti aan ku soo rafaadno ku soo daalaybo dadkuna islaam buu ahaa ee fursadan iyo ilbaxnimadan yaa ka maqnayd horta gurigii ilaahay baynu ku jiraa xabiibkeenu wuxuu yiri salawaatullaahi wa salaamu alayhi inna buyutallahi fil ardi al masajid wa kana haqqan ala allahi an yukrimahu man zara fiha ilaahay dhulka guriyuhu ku leeyahay waa masaajida ilaahay soo adduunka iyo aakhiriga dhul iyo cilmo wadane haddana waxa la sheegan karin oo cid kala joogo oo dhan kari waa masaajid kuwaasu ilaahay ku leeyahay dhulka waxa xaq ku abuuray xabiibkeenu waa xadiiska ilaahay ninkii masaajidkiisa ku soo ziyaaday waa guriga ilaahay ilaahayna kama maqna ninkii ku soo ziyaartay masaajidka gurigiisa inuu karaameeyo ilaahay bakhayl ma asideen ninkii gurigiisa yimaada ee daaco yimaada wuxuu kala tagay dambi dhaaf iyo janno guriga ilaahay waa sidaas in la amiro waxa la doonayaa sidii ay goorta dhaweyd sheekhu sheegayay waxa amiraya masaajidka inma ya'muru masajid allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama salata wa ata zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu min al-muhtadin masajidka waxa amiri ninkii rumeeyay ilaahay iyo yawmal akhir maxaa loo daba dhigayaa ilaahay waa hawlaha uu leeyahay yawmal akhirku ya weeyaan walaalayaal ummadii inta ku soo dadaashay horta waan u mahadnaqayaa Allah ka ajirsiyo waxaan ku soo gaabinayaa kama soo bogan karo oo sanka loo ka soo dhaadhacay qoftayday waxay mooday libaax duudka ka soo duushay alxamdulillah maantana wakaa ama ubaxa iyo sharafta ay tahay iyo ninkii arkaaba ku mahadnaqi horta weeye dadkii dadaalka u soo sameeyay ee qurbaha ah Allah barakeeyo waxaan ku magac dheeray Cabdi Axmed Dari duqono fadhiyaaba waxaan ku faraxsanahay oo ilaahay uga mahadcelinaynaa gurigan sharafta leh ilaahay loogu cibaadaysto sida islaamnimadu sheegtay ee xaq ahayd loogu tabarucaaday in aynu ka faa'iideysano ilaahayna ku caabudno subhanahu wa ta'ala marka hore waxaan u mahadcelinayaa marka labaad dadkii ku bixiyay jundigan kuwii ugu horeeyay ee qurba joogta ee waa run iyadoo garanwaale baan macadka halkaa shanta qol ee ugu horeeyay meesha laga dhisay baan dhagax dhignay sidan baan maalintaana u taagnaa talaabadii qurba joogta reerku gabadh iyo wiil ay qaadeen aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa meel kasta oo ay joogaanba